galaaska mararka qaarkood waa ogtay waa naqaan ardada qaar wuxuu ku leeyahay macallin sida ii dhan marka hore galaaska dhexdiisa isku walwaalo marka banaanka u baxay ku leeyahay macallin sida ii dhan soo ma arkin wax meesha fadhiyay sawaadi xarasha leeyahay sida ii dhan maartay dad badan ay fiirfiirinayeen way dhinacaas ku fadhiyay soo abaarkeen waa ku baryahay maanta cafi garkaan ku haysta sakii cafi kaas ka dhaftay galaasku tagay ka waran macallinkii meel baan saaru yiri taas meel baan saaray meeshaas ka saarno xisadaha ku socotay laakiin xalku ma isku taagnay isku dhicid dabeecadda tanaazulka iyo maartay qofka adoo gar leh waa la iska dulqaataa mararka qaarkood ma waxaa loo haystaa haas inay tahay dacafnimo may tahay soomaalida haddii laba reer ay diriraan kuwa yar iyo kuwa badan kuwa yara ay adkaadaan markasta oo kuwii weyna ay dhahaan war aan heshiino maxeebaa kuwii badnaa farax badnaa yiri war anagu baaba'anaye dadka u tagno aan heshiino shuruudo waxaa laydinku xiray shuruudo adag waxaa ka fudud waxay badbaadaysaa dhiig badan soo ma saas dhiig badan in la heshiiyo meeshaan ilmaha ku bari lahayn waa halkan in markuu bari meel tago isku tanaasula wallahi macallinkaas maalintaas waa laga gadarnaa laakiin wuu iska sabray wuu dul qaatay meel baan lagu gaaray maalintii meel marka arday rabo waxa inuu istus murqihiisa muujiyo asbaab kale asagana haysta waxaan garanayaa galaasaan ku dhex jirnaa ilmo yar baa iska nahay mid xoog weynaa galaas ka fadhiya macallinku sabuurada xaq u jeesto wala inteena kale qosleena waana la ciqaabaya asaga joog waxa u dhigi karaa male joog lama dhigi karo waa loo jeedaa wixii siilka waana asaga waa la ogyahay dhibaatada waxa arday ku keenay waxa oo iska muaqata temporary waqti yar xanaaqsanaa waxa ku soo aadaa soo xanaaqsan ama wax ku dhaceen ama saakay qof soo dirireen ama gaariga u soo raacay qofka waa fiicnaan jiray maantu si ka yahay wakaad oo dul qaadadna wax iska dul dhaxdhaxaada marka xilligaas oo marayo iska maraan ardadu xilliyo badan ay maraan maalinta imtixaanka la soo dajinayo ee warqadaha aad soo celiso qaara xanaaqi doona qaara warqada jeejeexa qaara warqad kugu tuura ma jiraano ya arday warqad kugu soo tuuray waa xanaaqay waa ishayn waayay waa warqadiisa tirisefer eber ugu abaalgudi buunda laga jaraya waa inoo tahay aniga adiga anaa ku tusin doona wixii ku raaca maalintaas waa maalin dhib maalin imtixaan la qaadayo xisada imtixaan lagu jiro ardayda galaaskii ardaya dhaqaaqay wariyaha fiirin meel mar dambo wariyaha meelka wax lagu xaliyaa jiro ka fudud xilligaas imtixaan haystee xilliga imtixaan ku jiro xagaaji ama hadda wax imtixaanka qofa inta noo soo galay laba caruur oo wata halkaan uu yimi waxa yar ma fariistaabay fariisanadi waa orday kaamaradaas ku dhagay ka kaamarada mid kale ordayo odagaas koofiyada ka dafay mid kale tagayo cimaamadu dafay midna biyuhu daadiyay mid kale yimid gabadhan jalbaab ka jiiday war waxa ilmahaagan maxaa dhacay markaas uu nimo raaliga ahaada xaalkayga ilaahay baa garanaya hadeeraan waxaan ka imid xabaalaha hooyadood baan soo duugay ee hal ay dul qaato soo isbedeli meeyno ya arintii aan marka hore duruuftii waxa dhahna kaale soo dhaw ani ilmihi kaale soo dhaw oo biyaha iyo cab xaaladda hore ma aanan fiirin xaalad waxa imaan karta qofkan dhibaataysan yahay imaan karta marka xaaladaas aan fiirino ma akhadka ah oo waxa dhici karta wax ku soo booda inay tahay oo qofkaani mid baa waxaan ku iri arday anoo galaas jaamacad dhigta dhulka ayaa wareega dhulka kubad weeye jaamacad waa mid baa meesh taagan macallin beenta ka daardo qora saasal noqotay macallin beenta ka daardo
marka maxay noqon waxaan ku jawaabaynaa wariya adab daranida maana ilaahay beenlow halkee ka markaas waxaan ku iri waxaan u malaynayaa inaad ka wado aayado quraan iyo axaadiis baa loo baahay ha macna afka iga dafay garaallaho waaba xalisata arintii markii laakiin hebel iyo adi 10 waa laga baxayaa hadhow ereyga ka dafi kara qofka annaga soo man dhacdo wax naga dhaco qalad haye keenaya noo xisaabiya qofkii erey khaldana ka dhici kara ereyga dalabo maanigaadi tiri meesha haleynayso waxa dhici karta khaladkaas dhacay inuu iska yahay khalad cafawi ah ku dhacay si aan kas loo oran shaygaas kama u dhacay kas ha ka dhigin iska dulqaado waxa umeena macalin saan u jilcinayna geesaha u garaacayni waxa u haysataa macalin maanta inuu eber yahay waxba u qabanin macalinku miskiin sana waan dhahnay asbaabaha keeni kara in ardada ay keenaan waxa kamid ah galaaska inuu ardaygu yahay arday duruusta aan ku fiicnayn oo fasalka rabshaynaya inuu yahay arday haystaan dhibaatooyin qoys inuu arday yahay raba inuu usmuujiyo ardada kale inuu usmuujiyo inuu yahay arday ay dhibaato ku meel gaar haysato inay haysato dhibaato ku soo booda erey ku soo booda inuu haysto waxa soo dhan marka yaanan waxaas u tixgelinin wax joogto ah annagu aan ardadii baan way dhacan ba umeena qodobadaas iskooladana ka dhacan maalin kasta dhacan maxaa lagu xalinayaa xikmad ku xalli xikmad maalin kasta arday qalad ka dhacayaaye maalin kasta eryin baa out banaanka macalin adaa fudud ku xigta adaa fudud sida aan marka u dhihi karno arrimahaas waxay ka mid ah ardayga dhibka badnaa waxa waaye waxaan ka qayb gelinayaa casharka waxaan la raadinayaa waxyaalaha haysta waxaan xalinayaa arday fiican u noqonayaa mushkiladda haysatay daawee calaamadaha ka muuqday ee cudurka ah maaha daawada mushkiladda haysatay daawee mushkiladda haysatay meeshaas ayaa laga hayay daawo qofa waxaa laga hayaa meel wada joogni wuxuu dhagtaa laga hayaa habeenkii oo seexan way war dhagtaa xanuunays subaxii dhakhtarku tagay waxa dhagta laga ma hayee goosa laga hayaa gooska la daaweeyay dhag waa fiicnaatay dhag la wahayna walba waxa dhici karta qofkan calaamadaha ka muuqda mushkilada inay jiraan asal waalidkiis u yeer arrimihiisa kala hadal maamul kala tasho macallimiinta qaarkood weydii say u xaliyaan warayso qodob waa kaas oo ardaygaas ka qayb gali waxa kale ka qayb qaadataa ardayda ka qayb gali inay fasalka maamulkiisa ka qayb qaataan mararka qaarkood inta aad dhihi lahayd haddaan galaaska soo galo qodobadan loo baahay hebel waxaa ka roon ayaga dhexdooda war si aan casharka u wadano aan nidaam degsanno nidaamkaas ma dejisanaa idinku noo go'aamiya ayaga ha ka qayb qaataan dadku way jecel yihiin waxa ay ka qayb qaateen inay fuliyaan inta wax loo meeriyay ay fulin lahaayeen ha ka qayb qaataan waxaan barnaba ayagoo yaryara waxaan barnay in uu jiro wada tashi samaha waa barnay kadibna galaaska waa hagaaga waxbarashadii way socotay hadda ka qayb galno wada tashi ma sha Allah waxaan barnay arrin cusub oo mas'uuliyad ah ila arday muxuu wax ugu horeeyo ka baranay maxay tahay meesha waxa ugu horeeyo waxa waa qof mas'uul inuu soo baxo mas'uuliyad marka qof mas'uul ah ayaan dhisaynaa oo hadhow ummadda asagana wax u tara qofkan gaar u bixi mushkiladda ku haysta maxay tahay waa asaga ku sheeganay qaar iyaga wallahi markaas ula taliso waxa tala qofkii dhibaato haysato oo tala u baahan ha ii yimaado xil arday badan ku iimaanaysa macna ana ibka haysta maan hore mid baa ii yimid wuxuu yiri jaamacadan dhigtaa accounting baan dhigtaa iyo maarta xisaabeedka waxaan go'aan ku gaaray inaan noqdo Soomaaliya qofka accountiga loo daba fariisto go'aankaas aan gaar ku lahaa go'aankaas ay ma gaartay wax su'aalan ku weydiinaya ila tala kulaha saa u sii wada arrintan meel dheer baan tiigsanayaa hadda Soomaaliya ka bilaabayay waxa ay maxaa
markii aad galaaska imtixaanka la galay meeqa buuga akhrisay maadadaada maada hebel maana akhri kulaha warqadaha macalinka slide iska akhriyay slide ka yararka ah intaas meel ma lagu gaaraa macallimiin hadaa nahana ardadayna kullu goyn slide gaar ahaan macallimiinta jaamacadaha dhiga ardadayaan lagu lugoyn isla warqada ah oo imtixaan lagu galo oo markii uu dhamaado imtixaankana meelaha lagu tuuro ardaygu ha barto buugga weyn inuu ka akhristo wali buug kale in lagu daro laakiin waxa yar oo soo diyaariyo PowerPoint next wax ma tarto ardaygaas wax ma aanan barin waxa la mid ah macalinka inta soo diyaariya casharka aad u soo gaabiya su'aal iyo jawaab ka sameeya ee ardada siiyay su'aal iyo jawaabaha kaliya soo barta imtixaankan asoo ku imaanayay taasina waa khiyaano kale su'aalahan macallin baa sameeyay waa maadadii dhan oo su'aal jawaab buug akhrin meena anagana su'aal jawaab la akhrinayna waa ma caasimada Soomaaliya Muqdisho waa ma waxa la akhrinayna imtixaanka ayaan ku imaanay taasina waa lugooyo hadaarta ugu diide waxa ka sii daran ayada lafteeda oo lacag lagu qaato soo kama sii darna xogaa yaro $10,000 $1 la gadayay macalinka soo diyaari may hadaarta soo diyaari wax siiye laakiin imtixaanka buugga uu ka imaanaa weyn buugga ka keen marka buug ka keenaysana su'aal buug ku taalay inta soo qaado imtixaanka ha keenin buugga ku taala imtixaanka la keenay maxaan tarnay ardaygaas waa dhumay galaas ugu soo shaqeeyay shayga hebel waxa waa shaygaas way inta imtixaankii shayga isla shaygiya marna imtixaan ku jira ma wax kala keen warka bedel qaabka u dhehaysa bedel laakiin buugii wuxuu ku yaal soo koobiye inta keen siyaasad waxbarasho fiican ma waa ku shub ka shub dariiqadaas waa ku shub ka shub ardayga marka inuu rabo inuu meel gaaro ardayga muxuu yiri marka ardayga sheekadiisa wadee aniga waxaan bartaa buu yiri bas laanka macalinka buug kala ma akhriyo goorma meel gaaraysa waxa laga rabaa waxa ma macalin waxa iga daran kula markasto aan rabo inaan wax akhristo oo go'aan gaaro waa caajisaya ma qab baqraso buug soo dhigta waa caajisaya waa go'aan iga tahay saasaba waa caajisaya marka waxa ku fiicana hadii aad bal caajisnimo isku day saa ayadana uga tagto ayadana bal caajisnimo niyeyso bal ka tagtidii